السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلام على adduunka meel kasta ka joogtiin soo dhawaada. runtii waa aad iyo aad u mahadsantiin maasha allah tabaaraka allah sida fiican ay ila socotiin sida videoashida u faafisiin share gareeya insha allah more waxa weeyaan just informationka iyo waxyaalaha maaragtay aan naga yaabiyo aan ku aragna adduunkan iyo meediyaha baan isla xiriirnaa wixii aan idiin soo gudbin karno waa idiin soo gudbiyaa. maanta maxaa la idiin wadaa waa maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo laba waxyaalood. waxa ugu horeysa waxay tahay kommentiyaal badan oo la ii soo diray ama masajyo la ii soo diray oo meeshii youtube-ka markaan aniga video qof anoona qofna nacdin yacni nacayb aan u qabo aan wax u sameyneynin ama video u sameyneynin ama kurhi aan u qabo aan u sameyneynin, laakiin dadka walaaladay ah dhibaatooyinka lagu sameynayo ee dadka masaakiinta ah oo maaragtay advantage-ka laga qaadanayo aan u sameynayo videoyaashaas inaan u sheego oo maaragtay dadka iraahdo warheedhe meel fadhiista. youtube-ka marka aniga video soo dejiyo waxaa la rabaa videogaas haddaad ka qabtid mucaarad aad ku tahay ama aad dhib ku qabtid dislike ku samee, no problem, dhib iguma aha. haddaad kasoo horjeedid ra'yigayga kusoo qor hoostiisa sida dadkao dhan u arkaan. ileen dadka waxaa kulli qasab maaha inay wax kasta adiga tiraahdid ee hayay yiraahdaan. qof kastana ra'yigiisa iyo maskaxdiisa waa inuu ka shaqaysiiyaa. laakiin aniga waxaan hadda ka horna dhowr video aan ku iri dadka masajyada gaarka ah facebookgayga intay tagaan iigu soo diraya messengerkayga ama ha caytamaan ama masajyo gaar ha soo diraane. videoga markaad arti inaad ka comment garaysid haddaan qof aan ka soo horjeedo aan ra'yigay ka dhiibanayo ama aan leeyahay walaalow qofka dadka muslimiinta ah ama dadka walaalaha dumarka ah dulmi baa ku haysaa ka jooji waxaas. haddaad dhibaato kugu tahay soo geli commentiga meesha videoga naftirkiisa hoostiisa kusoo qor waxaad tiraahdaa markaa ra'yigaa ka jeediso. laakiin inaa intaad messengerkayga tagtid si gaara aniga message iigu soo dirtid daaminis waa waxaa tahay qof dhuumanaya. gabdho badanaa meesha waxay iigu soo qoreen iyo wiilal messengerkayga dhahay haddaa hana abuukar ka hari weysid waa lagaa reebayaa, meeshaad degan tahay iyo waxaa tahayna waa naqaanaa. marka qofka siisa banaanba hadduu qof ka baqaayo ama uu ka dhuumanayo social media intuu soo galo ma ku dhahayo aniga kanadaan deganahay torontaan deganahay iyo welcome wax allaale waxaa sameyn kartiin sameeya. weligeyna bini aadan kama baqin, ilaahay qof aan ahayn subxaanahu watacaala kama baqin. sharciga iyo ruulalka dalka u yaala iyo maxkamadaha iyo askarta iyo dhaqankooda iyo waxaasoo dhan waa idinka badiyaa kulligiin. marka habar meel fadhiisatay oo iyadu comment intay qaadatay computerka uu ku cusub yahay comment halkaas kusoo qoraysa oo si gaar ahaan kugu soo diraysa aniga wax alaal waxayga qaadi kartaa iska yar. sidoo kale wiilasha masjid soo qoraya haddaa u malayseen dadkii masaakiinta ahayd oo Soomaaliya jooga aad ku circirsanayseen oo dhihiiseen waa lidin dilay dadaa laydin soo diraa iyo taleefankiinaan soo raadinaynaa iyo waa idin soo helaynaa iyo meesha degantiinaan aqaanaa iyo waxyaalahaas idinkaga baqaayaan dadkuna kuma jiro listigaas. ma fahanteen? ninkii ragga ahaa ama naagtii ragga ahayd oo quwad u leh inay maaragtay ani meesha degana soo raadsato aniga wax ii geysatana dee walaalayaala waa idii sheegay ma dhuumanayo aniga qof dhuumanayo ma ihi. waa idin soo dhaweynayaa meeshaan deganahay iyo maaragtay iyo dalkaan deganahayna waa taqaaniin. waa haddaad taqaaniinsa wax lasooga qaado aad afki ka hadlaynin waa. ta labaad waxa waaye interview maalin dhaweed laga qaaday gabadhaas nafisa la dhahaayo, hana lama dhaho nafisa la dhahaayo, magaceeda runta abadiyoodeeda la baxeen. waxa waaye video laga duuba wiil la yidhaahdo maxay ahayd cabdiraxmaan sheekh cabdiraxmaan hudayfa baa wuxuu ka qaaday interviewgii marka waxa waaye boqolkiiba boqol hal su-aali ka jawaabta maa boqolkiiba
boqol hal su-aali ka jawaabto malaha haba yaraatee kulli su-aal kastoo la weydiiyo su-aalu weydiinaya inkastuu aada ugu dadabacsanaa ana ka helin si wax u weydiinaya laakiin qofkas isagaa yaqaana si wax u weydiinayo waxay ahayd wax dadabacsan su-aal kastoo la weydiiyo waxa waay ma jirto hal su-aal ah oy 100% uga jawaabto malaha qaarkood waaba xanaaqda waa qaylisa su-aal baa waxaa jirta wiil la yiri walaalay wiilkaas baa wuxuu soo qoray su-aali su-aashaas ka jawaab waaba qaracantaba waa cid dabagalay ninkaas waa nin saas oo Sweden la degana waa nin sida wana cay iyo xeegish wuxuu yiri ha ka bixin listige waxaan ka hadlayn ha ka bixine ka jawaab marka bal ila dhageysto xoogaa yar interviewgas laga qaaday gabadhaas kan wad Somali gay passportka ka soo qaado waxaad ka samayso hadda waxay ka jawaabaysaa su-aalihii la weydiiyo ahaa maxaa qabataa maxaasaad Soomaalida u qabataa marka hore waxay tiri ilaahaba ii diray qalbigayga ii diray inaan dumarka iyo ragga kala celiyo oo dumarka Soomaaliya dhageystay ciyaalkii dadka muslimiinta ay la noqdeen oo ugala baqeen dalka qurbaha ah in dib loo celiyo ma garateen waaba maaragtay ilaahaba ii diray qalbigaygaaba ii diray lagu lahaa hadda marka waxay qabatay sheegaysaa iyo dumarku say ragga u galaano ay maaragtay ay iyadu ay u tahay wasiirkii maaragtay arrimaha dibadda Soomaaliyeed ee dumarka iyo ragga iyo rafaadkii kala celinayd waxyaalo waxaa qabta dadka Soomaaliyeed boqolkiiba 95 ama 90 way ugu raacsan yihiin waxaa sameynaya 10 baa ka soo horjeeda 10 ka soo horjeeda waa 10 aan intay naag wadaan ay Soomaali geeyaan ee passport ka soo qaateen ee cadowtinimo ku sameeyay ilmaha baabi'iyaan ay silciyaan ayaa ka soo daba saaro oo wadanka ku soo celiya ay cunug walbana miska wata Xudayfi ilma boqol aqaana oo adiga aad taqaana oo maanta Muqdisho jooga oo caruurtooda haystaan oo baashaarayaan kuwa anigu ma dabagala ani waxaan dabagalaa qofkii ummadda ilmihiisa intuu wada iyo reerkiisa iyo xaaskiisa silciya oo dhibaato u geysta taa ani cid aan kaga aabayeelaya ma jirto waa shaqadayda waana ka shaqeeya waana u shaqeeya ummaddaasa u shaqeeya waxa u shaqeysa dadka oo masaakiinta oo ilmaha maaragtay dadka laakiin caadiga oo caafimaadka qabo oo dhibaatada haysanin waxba kama samayn karto marka afarta xabay ku ciyaarta aqligooda ay dib u soo celisaa waay marka shaqadaas yaa ku dirsada adiga oo kugula taliyana shaqadaas qabato waad mahadsan tahay aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa su-aasha inaa is-su-aashid waxa waaye waxaa ii dirsaday ilaahayga subxaanu qaadirka ah qalbigayga ku soo riday inaan dulmiga la dagaalo ilaahayga subxaanu qaadirka aha ayaa itusiyo qofka inuu baahan yahay ilaahayga wuxuu la dhahay dulmiga ilaahay agtiisa uu ka xaaraantay anigu waxaan ku dhaganahay Xudayfi oo aan haysta bal caruur inta la waday dhaqan ciris loo celiyay boqol aqaana oo maanta Muqdisho joogo oo Hargeysa ka baashaalay oo Garowe ka baashaala oo Baydhabo caanihi ka cabeeya oo Iishak Jigjiga joogo oo Djibouti joogo no ani ma haysto waxaan ku dhagan waxa waaye ninka Soomaaliyeed ee baxa caruurtiisa iyo reerkiisa silciya waajiba iska saaray aniga hana iska saaray ana isku xilqaamay ilaahay baa isoo siiyey maxaa lagu dhahaa Iishak inaan fikiro aqliga iyo maskaxda iyo anaga naloo soo diray inaan badbaadiso soo kacana ilaahay baa isii alxamdulillah shukrilah marka sidee ku ogaataa marka hawsha qabanaysa bal sharaxaad naga sii qaabkee u qabataa qaabkee informationka ku heshaa qaabkee safaraad gelaysaa dhaqaalo badanaa ku baxay bal arrintaas wax badan noo sharax Xudayfi waa mahadsan tahay dadka Soomaaliyeed way og yihiin telefoon aan leeyahay number ah cid ay ka qarsanta malaha baraha bulshada dhaxyaala waa numberkayga cid aan Celebrate Easter with Cadbury Mini Eggs. Hello, Richard. It's always busy at the Cadbury Egg Farm. malaha 20 saac la soo waca waxa lagu dhahaa waa dhibaataysanahay waa rafaadsanahay ilmiga laga qaatay ilmiga laga qaatay meesha ku dhibaataysanahay miga soo saari karta live baa qabtaa streaming ah Facebook gayga sadaqa aruuriya qof kasta ku soo saara safaradayda goolida ahla waa hawshayda iyo shaqadayda aan ka shaqeeya cid ay u taala ma jirto ani ii taala private kayga waaye waxay ku leedahay shaqaan ka shaqeeya laakiin shaqada aniga aan ka shaqeeyo waa private marka aniga shaqada aan ka shaqeeyo marka Afrika u tago baan hore u soo maraayo soo kaxeeya waxaan soo kaxeyn karan
macnaha haddii qofku soo waco ku yidhaahdo meel hebel aan ku dhibaataysanahay ama soomaaliya meesha doonta aato afrika waa u tegaysaa waa u tagaysaa oo ah hadda anigu waxaan u tagay hal gabar baan u tagay aan gacantayda anigu kusoo saaray haye gabadhaas see usoo saartay gabadha zaynabaan lahaa waa reer waqooyiga soomaaliya kasoo jeedaa allahu mustacaan 9 sano ayaa waxaa la geeyey burca baadiyaheeda lagu soo hay gabadha burca baadiyaheeda la geeyey waa gabadha gurigeeda familka ay tusayeen villada weyn kasoo jeeday oo ilmaheeda baska privateka lagaga soo doonaya iskuulka laga soo qaadayo oo maaragtay oo ilmaheeda wiilasheeda maasha Allah kasoo bartay Soomaaliya wax aababka wiilka yarka aababka uu sameynayo oo wax soo barteen oo ninka xawilaada lacagta loo soo diro bil kasta xawilaada ay ka qaadanayso baadiyaheeda burcaaligi hadwaana gabadha villada kasoo jeeday oo lagu silciyay lagu lahaa dhibaataysiyay waa soo bandhigay dhibka loo geeyay gabadhii meeshii ay joogtay burca banaankeeda oo kasoo saaray hargeysaan keenay waa soo idiin soo koobaya hore waan u sheegay hargeysaan keenay hargeysa markaan keenay aniga inta ka baxay oo shaqo u baxay oo Nairobi tagay Nairobi markaan tagay oo shaqadayda ii dhamaatay waxaan dhahay maxaa ka laabanaysaa ma reerkan soo istaartay hargeysa ma joogaan muqdishaan tagay muqdishaan joogay 10 bil oo ku raaxaystay garowan tagay garowan ka baxay baabuuraha qaatay hargeysaan tagay hargeysaan halka ka soo saaray boosaasi hal habeen jiifteen habeenka labaad garowan isku imaanay habeenka saddexaadna muqdishaan ka soo dajiyay muqdisho markay ka soo jidin laba habeen bay joogeen habeenkii sheekada hadda gabadha sifaarada Afrikada kamid baan geeyay maanta sifaarada bay gacanta ku jiraan u fiirsan si uga jawaabi doonto waa tahay marka qarashkaas yaa bixinaya marka fiiriya qarashkaas waa ummadda Soomaalida ka aruuriyo weeye أنا أروري سدح كل $1 بنك أروري دوكي سوماليا سوسة صدقة بحصلي ما هذيك يردت قبل أصلا صوبت بعدين دونا العك هنا ما تري معنا ما يلا يصوّع ذي حدايفي يلا يصوّع يسقطهم يصوّع لايف ستريمينا أقولي قبل هذا الكلام كده مش صوت يقول قبل هالعاوي قفك ما كوا حاسميا لو آدين كأنتو يصوّع إنكو سيقولي ويصوّع ذا أوكي كاميرا باشد بها ستوشي بكوشي Hi. Every time Dave eats his Cadbury, tahay iyada kamarada shidataada ka ogaataa marka hore meeshuu degan yahay iyo rafaadka iyo silaca iyo saxariirta markaa arkay ilmihii aan arkay iyo dhan banaanka yeela marka waa la yiri waa la dhahay intaan joognaa 2021 baan joognaa Xudayfi hore baa loo soconayaa ilaahay wahashada wax uma arko ilaahay wahashada wax uma waayo ilaahayga subxaanahu qaadirka ahaa ayaa anigu iwato taanaka anigu haddaan dulmi galay oo qof aan dulmi ka galay Xudayfiyo wadan baan joogaa naag passport sida ka ahay maxkamad baa jirta damaam hadda wadan baan joogaa ingiriiska aan deganahay alxamdulillah alshukr why meelaha looga qayla why lii dacweyn why hadda wax la ogyahay ilaa naan sharci lahaa ahay naan anigu waxaan ahaa ingiriisku waxa ku lahaa no one is above the law qof oo sharciga ka weyn ma jirto sharci waa loo wada simay ingiriiskan jooga passport Swedish wata hadda Sweden baan jiray 2 weeks ago waan ku soo wacay waad ogeed November gabar Soomaali baan soo الله يرحمه رحمه هنا وحنا marka inaan si caadi ah marka aan arinta u qeexno ama aan usoo bandhigno kulay wixii jira adaa sheegay waxaan rabaa inaad si caadi hadan u sheekayso oo aad ka sheekayso misakiis ayaa gashay misakiis ayaa ku guuleysatay misa ayaa kugu adkaatay haya ani asag si fiican baan isku naqaana waa ninka intuu soo basir u jira waalidku waxa waaye misakiisa sameysay waxa waaye waxa u malaysaa in for some reason ayada uu ka dhigayo she's doing a lot of work and a lot of help and dad dumar badan inay caawinayso waxyaalo badan inay sameynayso uu maaragtay soo bandhigayo aa u malaysaa si wax u su'aalayo su'aashaan markuu dhageysta soo cilnaya hababti luuqad ma taqaan waxa kula maxaa ku sameeyaa hay maxaa soo laga saaro cunuga camal wuxuu ku leedahay ilmaale soo waxa waxa lagu leeyahay cunuga markuu hooyadiisa bis ku soo ficiliyo dhowr bariyan siya wiigiga siya fasaxan siya waxaan dhahaa hadda sida u daami weyse marka social service-ka ilmaha loo dhiibaya yani ilmihii hooyadood inta laga qaada gaala loo dhiibaa bay la soo fadhidaa meesha idabu soo yeela meel baa laga soo xareena idabu soo yeesha
meeshuu usoo laabanaya xagee ka soo laabanaya ilmo soo dhiba soo laabta marka keesaska 85% ama 90 kusoo gud keesas waxaa jira weli aan gacanta ku haayo oo markii la rabay in la dhameeyo oo xagga dowladda ha timaado ama sifaarad walba ha ahaato ama dowladba ha ahaato ama migration walba aan la shaqeeyo ama ila shaqeeyo ama wax aan ku shaqeynaba ama aan keeskii ayaga mas-uulka ka aha aan farta ka saaro ayaa waxaa dhacay kirownihii waa gartay kirownihii markuu dhacayna dee waad ogta meel waa xiran tahay haye waa kaasa marka keesaska inta badan oo kusoo guulaysta alxamdulilah waana soo bandhiga waxa kusoo guulaysto hana marka si loo fiiriyo ilaa hadda waxa aad ka meermeertay cidda dhaqaalaha bixisa waad ogtahay qurbaan wada joognaa yurubaan wada joognaa maxaa ka wadaa aniga igu bixisaa ha anigu naag shaqaysata ah alxamdulilah alshukurlah safar walba aadaan shaqaan wa aadaa tan adiga ku gaarka waa gooni laakiin inaad shaqooyinkaan geshido waqti badan aad gelisid dhaqaalo badan u baahan yahay shaqadayda dad soo aruurisa marba gobolka degto waa tahay dad badan hadda waxay soo qorayaan qof maxamed xaaji wuxuu leeyahay lacago badan oo sadaqa ah ayaad aruurisay welina xisaab xirkeedii lagaama helin taa maxaa uga jawaabaysaa horta maxamed xaaji aad baan u aqaanaa kowde asag si fiican baan isku naqaanaa waa ninka intuu soo wacay aflagaadee i caayay sweden aan isla degannahay halkan waxaan ka sheegayaa inaan waxaad ku caysay aan record gareeyey hadalka ha igu celinin please hadalka ha igu celinin hadalka ha igu celinin please hadalka ha igu celinin ninkaasayto aniga asaga ballan waxaan kaaga qaaday hadda idiin sheega soomaaliyeed waxaan leeyahay power hadda asagana lama joogo su-aal anigaan soo qoray maya su-aashiisa waa ka jawaaba laakiin ninkaan waa u jawaabaya ninkaan wuu isoo wacay wuu aflagaaday shaksiyan buu isoo wacay wuu aflagaaday waxaan kaa ballan qaadayaa raadiyaha sweden aa ka shaqaysid inaan dib dambe ugu shaqaynin hore u soco hana waxaan jeclaan lahaa barnaamijka inaan ka bixin su-aalihii lagu weydiiyo uun inaad si gaara aad uga jawaabtid dad kala duwan ayaa su-aalo kusoo weydiiyo ay ku yidhaahdeen waxaa faafisay barnaamijyo aan Tropicana provides 100% of your daily advertisement vitamin C ee ka in every buuxa glass. beejkeeda every 3 seconds advertisement soo galaya oo sida bulshada in loo soo bandhigaysa munaasab ku ahaynin sida in gabar ay hooyadeed inuu maxay ahaatay hal nin ay isla wada guursadeen okay waa mahadsan tahay anigu meesha ka timaada anigu kama imaanin anigu qurbaan yar baan soo galay qurbaan ku kor this is the thing marka hadda meesha wax waaye meesha adig ka imaatay kama imaanin iyo su-aalaha la weydiiyo su-aal kastoo la weydiiyo way ka boodaysaa meel kale u boodaya nin gabar iyo waxaa la weydiiyey su-aasha waxay ahayd gabar iyo hooyadeed baa nin isla qabaa oo guri isla degan baa soo gelisay waxyaalahaas maxay tahay soo akhlaaq xumo ma ah maya aniga meeshaa ka imaatay kama imaanin meeshaana dalkaana anoo yaraan soo galay marka aniga ma arki karo ay ku leedahay haddii qof la abuse gareynaya waxaas kulligay anagoo yaraan soo galna dalkan wax isagoo waayeela soo gala mana saa u dhaqmaysidna uma dhaqano su-aalaha marka la weydiinaya waxay tahay oo more than 5 times ugu soo celiyey waxay ahayd lacagtii xaggee ka baxday waa shaqaystaa okay aniga hataa haddaan shaqaysto baajkayga idiin soo bixinaa kambanigaasaan u shaqeeyaa dalkaasaan u shaqeeyaa saasaan u shaqeeyaa wax allaale wixii aan maadaama ilaahay ii nimceeyey oo aan traveling sameynayo oon dalalkii tegtegayana wixii aan caawin karo dad soomaaliya waan caawinaya markaan tago waa idin tusaya qofkii aan caawinaya dadka usoo dirsada lacagta daaragta taleefonkooda ha lagu soo shubo idin dhahaya laakiin aniga taleefonkayga inta lagu soo shubo markii lagu weydiiyo lagu dhaho lacagtii aaweyna maxay ahayd wiil soomaaliya oo radio ka shaqeeya baa korka laga saaro layidhi wiilkaas su-aal soo weydiiyey su-aasha ka jawaab lacagtii xagay ku dambeysay xisaab xirka keen waa run 3 kunaan sameeyey iyo xaggaan sameeyey 3 kunaan reer ka faraa ka saara 3 kun maxay tahay over 10,000 bay each time aruurisaa ama ka badan lacagtii aawey ilaa hadda laga keena laayaho keen sheeg maya ballan waxaan ku qaaday maxkamada ii socoto xaggaan sameynaya dadka ma cafinin oo dadka ma sameynin maxaa ku cafina dadka adaa dembi ka gala adaa lagu haystaaye waay qofay inta soo dhigata meeshii
waxay u soo gelisay meesha inuu difaaco oo iyada wejigeeda qurxiyo the end of the maxay ahayd the video wuxuu dhahayaa waa inaan brogaraamo badan isla sameynaa that means waxa waaye inuu la shaqeeyo oo wuxuu rabaa iyadii ku soo celiyo positionkeedii iyo tuugnimadii iyo dadka iyo wixii inta aad ku guuleysatay iyo intii ay kuu suurtageli weysay iyo saa u sameyd noo sheeg intaasoo kaysaa lagugu haystaa intaasoo kays iyo intaasoo islaam iyo ilmo la kala waday iyo hooyo meel la dejiyey ood ka soo kaxaysay meeshii la dejiyey iyo rafaadkaas iyo silcaasaa lagu haystaa iyo waayeela hadda waayeela u tagtay lada islaam waayeela wiilkeeda garaaca iyo wiilkeeda maalinkas ku qayliya iyo wiilkeeda abuse gareeya baan wax u sameynaa iswili degan marka intaasoo kaysaa lagu haystaa intii kays ka soo caddee halkii ay caddeyn keeni lahayd ee waxay ku leedahay maya anigaaba shaqaysto aniga shaqadaydaa ii saamaxday shaqadaa shaqays maxay tahay oo kuu saamaxaysa inaad travel garaysidoo aad keen soo digi lahaa social workerada ah soo digi lahaa media la shaqeeya which one is it real estate maa tahay oo guryahaad iibisaa ma social workerad baa taho international social worker adduunka lagama sheegin weligeedna ma dhicin maxay ahayd askar iyo maxkamad iyo immigration intaasoo qoftaa la shaqeysa waa sheegaysa waxaa leeda waa kaas proofka waa kaas beena sheegaani ile magacaygaa rabaa inaan kelin gareeye waa kana bejkayga intusa waxaa lee waa kaas bejkaas kambanigaasa u shaqeeyaa nairobi hadda tegi shaqan u tegi shaqada markay ii dhamaatana waxaan ka caawin karaa dadka caawinaya dhibaato ma ah laakiin dadka caytamaayo dhahaaya maaragtay maxaa lagu haystaa iyo hala iskaga hara iyo haddaa ka hari weys maaragtay waa meesha deganta waa la yaqaana waa lagu dilaya imaadoo kaale waxaad dili kartiin aan aragnay marka gabadhan adduunka ilaahay fusqi iyo been iyo nasaabnimo iyo maaragtay iyo maafiinimay ku haysataa haddana maalin kasta qof qurxiyay soo dhigaysaa meesha oo iskaga kaa dhigaa inuu maaragtay uu su-aalo weydiinayo daacad ahoo maaragtay waa lagu haystaa I really don't want that the video go from the beginning to the end si direct ah oo maaragtay waa lagu haystaa ka jawaab ma jirto wuu ka boodaya wax kale uu boodaya su-aalo weydiinaa personal say ku shaqaysaa lacagta waa yaa kaa bixi lacagta haa adiga taada kuma weydiinayna waxaan ku weydiin weyn soomaad dhihin dadka u shaqeeya wasiirka soomaalida ah oo anaa dumarka iyo anaaba ilaahay ii soo diro ilaahay qalbigii kusoo shubay inaan dumarka caawiyo no problem dumarka caawiyo wax loo baahanya dumarka la caawiyo oo abuse women iyo children waa loo baahanya in la caawiyo waa wax aan u baahanahay dumarka iyagoo dhan laakiin waxaad si daacada inta soo dhigtid meesha banaanka soo dhigtid waxaad tirahdaa saasaan u shaqeeya kambanigaasaan u shaqeeya saasaan ahay waxaasaan ahay wixii caawin karna waa caawiya haddaa caawiyana saasaan ahay laakiin taleefonkaaga intaad soo dhigatid oo maalin kasta qofku soo qurxiya videoga la soo geshid oo maalin kasta qofku soo difaaca hadhowna 4 xab 5 xabood lacag u tuurtuurtid $100 u tuurtuurtid ee dadka islaamiyada masjidooda iyo privatekooda intay soo galaan ay masjid usoo diraan ay harowsadaan oo maaragtay halkaas ka caytamaan wax allaala wax haba yaraatay ay tahay aysan jirin oo maafiya og tahay waxa waa qof maaragtay arkaysid inaysan normal ahayn marka aniga waxaan idinla talinaa walaalayaalow dadka masjidada gaarka ah soo diraayowna meeshaan deganahay iyo dalkaan deganahay dadkao dhan waa yaqaaneen youtube-kada hoos ugu degtid about a tiraado lagu jeeda kanada inaad degantahay imaama oo aragna waxaa sameyn kartiin waa ta koobaad dadka kaleetana walaalayaalow gabadhan waxay og tahay iyo cilmi ay leedahay iyo qofay u shaqaysa midna ma jirto lacagta idinka u diraysiin bay ku shaqaysataa oo suuqa ku gasha oo maalinba magaalo uga degaysaa maalinba hotel ku seexanaysaa lacagta ha laga joojiyo saboortiga loo sameynaa ha laga joojiyo haddii kalena waxay ogaatay naag maafiya ah oo soo dheer dhigatay oo maalinba xijaab goona idii soo xiranayso inay caawinaysiin sadaqa kuma baxaysa lacagtiina waxay ku baxoosaa maalin kasta in hotel lagu tago oo lagu tunto oo lagu qayilo oo maaragtay suuqa lagu galo baa ku caawinaysiin lacagtiina ogaada taas oo maalin kasta dal looga dego aniga kambanigayga iyo shaqadeyda meel ii dartay kambanigayga iyo shaqadeyda aniga haddaan dad aan raba inaan caawiyo waa intusa waxaa leedahay kambanigaasaa u shaqeeya ma ceeb baa ku jirta ceeb ma ah ilaahow ma jin u shaqaysid
ilow maa jaasuus noqotid jaasuusaan ba ahayba aniga maalinba dowladdaa maalinba dad iga dejiso jaasuusaan ahay waxalaal waxaa arti noqo qofku haystay qof kuu qabsanoo midna ma jiro laakiin maalinta inta qaadatid aad dad masaakiin ah aad marba gurigooda inta wacdid aad ku qayliso tiraa saasaa idinku sameyna maxkamada idigeena qofay maxkamad geen karta qof ka qaban karta mana maxaa waxay ku leedahay dadkii ma cafini maxaa cafine adigaa lagu haysta adiga iska soo saar adigaa lagaa rabaa in lagu cafiye maalin kasta adaa lagu habaarooyahay marka hadda maanta ani waxaan usoo galay labadaas waxay ahaayeen videogaasna inaa idin maqashiiyo ay marba su-aal ka boodayso su-aal kale u boodayso ee hal su-aal aysa ka jawaabin wax kaliirana aysa sheegin waxay ka shaqaysana aan la aqoonin ilaa hadda intaan ka degnay bambaasan ka degnay hargeysaan ka degnay intaan ka degnay waxaan ku leeyahay xaggee ugu jecesha soomaaliya gobolkee ugu jecesha kee degi lahayd waa sheekaysanooyaan asaga wuxuu iska dhigaa qof dadka usoo bandhigaya waxay tahay laakiin uma soo bandhigoy wuu faaninooya iyadii wuxuu ka dhigoyaa faaninaya ila daawada videogaasna waxa waaye ilaah laga boqo naagtaasna asxaayaan loo sameyn oo yaan la support garayn oo lacagtiyaa la siin oo sadaqaad daarabtiin dadka sadaqada dad baa sadaqada aruuriya u dira dadka shaqooyinka aruuriya dadka ehladiina u dira dadka masaakiinta oo runtii ugu baahan lacagtiina u dirsada naagtan ha laga joojiyo reer ingiriiskana arrinta hadda idinka isku sii warshubatay ingiriiska dadka joogow inta isku tagtiin walaalayaal oo dad dhiig lahaatiin oo sharaf leh oo dalka ayadoon dhala soo gashay kulligiin soo wada galay qof reer magaal aan ahayn ood arkaysiin luqad inaysan aqoonin oo mutacallin ahayn oo waxba weligeed soo baranin inay idinku dul shaqaysato dad masaakiin ah lacag ka gurato ka saara oo u dhiiba dowladda ingiriiska u dhiiba waxaad tirahdeen qoftaan maafiya waay dhaha oo dad masaakiinay guryo islaamiyad ah iyo guryo dad masaakiin oo ciyaalkooda kala tegay dalka inta naagay u sheekayska soo kaxiinaysaa kanaan soo kaxiyey kanaan keenay iyo kanaan waxay qabata ma laha lacagta qof ay wax u qabata ma halkaas faamilina marka la dabagalay oo ummadii dhanka caday bay banaanka soo dhigtay qasab ay ku noqotay inay wax meel keento oo wax u samayso ilan adduunkii dhanaa kacay markii la arkay lacagtii inay iska aruursanayso waxba la qabanaynin sidaa hala isku dhaamo walaalayaalo waa awoodnaa inaan sida isku dhaano waa awoodnaa inaan iska qabano dadka fusuqa iyo faasiqnimada nagu haaya oo naqasaya oo magaca dadka muslimiinta ku ciyaaraya waa awoodnaa inaan iska qabano ee hala iska qabto naagtan madaxa lagu dhufto markii maxaa la dhihi jira mas meelaha maray la arko waxaa la dhihi jira madax hadaa maska hadaa madaxa ku dhufatid waa bes marka waa la wadaa oo dad badanaa kasoo shaqeeyey oo soomaaliya iyo maraykanka iyo kanada hadda dad badanaaba la yiri waa